joogso walaal joogso rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa laga sheekeynaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar uu akhrin rabay khudbada oo minbarka uu rabay inuu fuulo tilaabtii koowaad markii uu saaray ayaa wax uu yiri aamiin tilaabtii xigtay buu aamiin yiri tilaabtii saddexaad ayuu aamiin yiri minbarkii buu dhameystiray oo koray khudbadiisii buu bilowday oo guda galay markuu dhameeyay khudbadii ayuu asxaabtii ridwaanullaahi calayhim ilaaha ka raali noqday ay weydiiyeen rasuulullaahi ay ku yiraahay rasuulka Allah saddex jeer baad aamiin tiri ma noo sheegi kartaa markaasuu yiri jibriil baa ii yimid markaasuu yiri saddex ilaahay cadaabka kama xoreeyo qof waaridiintiis nool yihiin oo aan janno ku mutaysan qof bishii ramadaan u soo gashay oo aan loogu dambi dhaafin qof rasuulka xabiibka muhammad sallallahu alayhi wasallam agtiisa lagu sheegay oo dhagihiisa ay maqleen oo ilaahay malaa'igtii ya ilaahay ay ku saliyeen oo aanan ku salinin qofkaas ilaahay cadaabka kama xoreeyo sallu ala nabiyikum allahumma joogso walaal joogso rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa laga sheekeynaya